goobtu waa dagaalkii Badar. Safka muslimiintana waxaa ka dhex muuqdo laba caruur ah kuwaas oo u aaman dhiigga Abu Jahal. Abu Jahalna wuxuu ka mid ahaa hogaamiyayaasha gaalada Quraysh. Nabigana wuxuu ku tilmaamay fircoonka ummadan. Caruurtani waxay fiirinayeen dagaalka, waxayna ka raadinayeen Abu Jahal. Iyagoo sidaas ah ayaa waxaa arkay Cabdurraxmaan bin Cawf. Dhinacooda ayuu fiiriyey, wuxuuna yidhi, waxaan jeclaystay laba nin oo xoog leh dhexdooda inaan ku jiri lahaa beddelka labadan caruur ah. Kadibna Cabdiraxmaan wuxuu yidhi, mid ka mid ah caruurtii ayaa wuxuu igu yidhi, adeer, ma taqaana Abu Jahal? Waxaan idhi, haa, maxaa ka rabtaa? Wuxuu yidhi, waxaa la ii sheegay inuu mar walba caayo Nabiga sallallahu calayhi wasallam. Allah nafteeda ay gacantiisa ku jirto ayaan ku dhaartay. Maanta ma kala baxayno, isaga ama aniga mid ayaa dhimanayo. Cabdurraxmaan bin Cawf wuxuu yidhi, anigoo la yaabankii ayaa haddana kii kale igu yidhi sidii oo kale. Waxaan arkay Abu Jahal oo dhex wareegayo ciidanka. Ilmihii ayaan ku idhi, ma aragtaan, waa kan midka aad i weydiinaysaan. Isla markiiba labadii ilmo waxay toos ugu boodeen Abu Jahal, iyagoona la moodo sida libaax uga harsanayo. Seefahooda ayay kula tartameen ilaa ay ka dileen. Nebiga ayayna u sheegeen arrinka, iyadoo mid walba uu leeyahay anigaa dilay. Nebiga sallallahu calayhi wasallamna wuxuu ku yidhi, seefihiina ma tirteen? Waxay dhaheen maya. Kadibna seefahooda ayuu fiiriyey, wuxuuna ku yidhi, labadiinaba waa disheen. Ilmahaas waxay kala ahaayeen Mucaad binu Camar binu Jamuux iyo Mucawad binu Cafraa.